Welcome back ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa Shakur bin Rashid iyo video cusub. So again, dad fara badan oo soo codsaday tutorial Photoshop. Maanta waxaynu baran doonaa sida sawirka kaaga muuqato kale. Sidee ayaa objectiga text-ka loogu dambaysiin karaa ama se text-ka qorayso oo Photoshop isticmaalaya sidee ayaa objectiga ugu dambaysiin kartaa. Sawirkan aad imka arkayso oo kale waxaad odhan kartaa sidee ayaa loogu dambaysiiyay text-ka background-ka ama se sidee ayaa text-ka loogu dambaysiiyay objectiga. So marka text-da la qoray waxa jira noocyo fara badan oo loo qoro. Waxaad u samayn kartaa oo kale inaad bottom-kaada dhigto qoraalkaaga sidoo kale waxa laga yaabaa inaad angle oo kala dhigto sidoo kale waxa laga yaabaa inaad intro samayso oo xagga hore soo dhigto ama outro samayso xagga dambe dhigto laakiin se markaynu eegino noocyada ugu casrisan ee ugu mawduucansan ee loo qoro text-ka waxa weeyaan inaad text-ka xagga dambe dhigto adiga oo barkii qaranaya ama se background-kii uu ka dambeeyo marka waxa la moodayaa in object-kii ka horeeyo text-ka oo text-kiina xagga dambe yahay laakiin text-ka barkii qarsoon yahay si yar qurux badan marka uu soo baxayo marka taas in rabaa maanta inaynu bal isla eegno inagoo isticmaalna Photoshop so sidii caadiga ah fadlan intayna video galno waxaan ka codsanayaa video-ga dadka sheena like sarto sidoo kale subscribe to channel ku soo birto notification bell-kana aadan ilaabin si mar walba ay ku soo gaaraan notifications-ka cusub ee video-da aan weekly u soo galiyo ee khusaya filmmaking-ku soo hadal badan ka bacdi inna marka soo eegnay waayahay marka Photoshop-ta soo gashaan waxaan isticmaalayaa Photoshop CC marka waxaad samayn doontaa marka koobaad sawirka soo qaadanay sawirka ayaan soo qaadanay open pen oran all right marka sawirkan hadii ku tijaabino sidoo kale sawirkan hawayaan mid ka qaaday magaalada Hargeysa mar ay habeen u rabtay marka kan ayaan maanta isku day doonaa inaan tutorial-ka ku sameeyno dabeedna text-kana meelaha dhexdeeda soo dhigi waxaan isku day doonaa marka text-ka qaybin lagu hagaajiyo marto okay marka waynu dadajin doonaa si yar fudud oo ka dhigi doonaa insha Allah marka koobaad waxaad sameyn doontaa sida caadada ah in aad layer-kaaga halka yaala aad copy ka samayso marka hal copy imika ka sameeyno waxaan ka sameyn doonaa laba copy si qoraalka qaybna u qarsoonto halka markay meeraha meelaha qaybna markay halka meeraha u qarsoonto marka waxaan sameyn doonaa marka koobaad laba layer baan ka sameyn doonaa oo copy marka waxaan isticmaalayaa Windows marka waxaan sameynayaa Ctrl iyo J baan taabanaya si copy ugu noqoto marka hadda isticmaalaysa Mac-na waxaad taaban doontaa Command J marka laba jeer baan taabsanay Ctrl J si uu nooga sameeyo labada copy waayahay marka labada copy waxa weey laba copy oo extra ah waxaan labada copy mar walba uga sameeynaa layer-keenan koobaad si wixii aynu uga bedelno sawirka ayna u soo effect garaynin ama bas aan u soo gaarin background-ka aynu u sameeyno labada copy mar walba ama hal copy ama laba copy marka saas fiican si hadhow talaada wax ka xumaadana aad u delete garan karto sawirkaaga caadiga original-ka ahna mar walba ku yaalo waayahay waxaan isku day doonaa hadaba tusaale ahaan markaynu qoraalka qorno dabeedna waxaan isku day doonaa inaynu halka ku qorno qoraalka u baahnayn imka for example Hargeysa oo kale okay taas marka waxaan isku day doonaa inaynu yarayno cabirka ay ku fadhido Ctrl T baan taabsan ama se Command T hadaad Mac isticmaalayso marka free transform-kaas ayna soo baxaya fartiin halkaas aynu ka yaraynaa cabirkeeda ay ku fadhido okay isku day marka aynu ku fadhiisano barteen u baahanahay okay meelaha markay marayso waxa weeyaan centerka halkaas ku diin doonaa calaamadda sax ah taabsan doonaa ama okayda waayahay hadaba marka si uu inoogu fududaado intaynu horta u baahanay inaynu qarnaa marka koowaad waxa weeyaan HA-da oo waliba A-daas ay ingar ka maqan tahay meelaha soo kala iyo R-taas ayaa lugta aynu ka qarin doonaa E-da yar oo half iyo G-da halkaas ku diin doonaa marka E-daas oo dhankeeda yara kala ah iyo I-daas nawaynu masaxi doonaa marka si ay inoogu fududaato waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaan ruler ama mastarad marka halkaas ayaan kala soo baxaynaa meelaha soo kana markay marayso meelaha soo kale iska badaaba eedaas oo kale halka markay marayso ayaan isku day doonaa halkaas oo kale markay marayso ayaan isku day doonaa inaynu qarino artaas oo kale jiida aan iska daynaa banori sidoo oo kale waxa aynu soo qaadanaynaa mid kale waxaanaynu ka qarinaynaa halka markay marayso ilaa iyo aydaas okay laba kale line horizontal aan soo qaadan doonaa si ay noogu fududaato marka halkaas aynu dhigi doonaa iyo halkaas okay marka waxaan masaxaynaa waa artaas
iyo iida iyo aydaas oo iyaguna meel wada socda ah. marka labada lugood inta ku beegan waa intaas aynu ka masaxaynaa. marka haddaad u baahan tahay inaad la soo baxdo oo marka hore aanay ku lahayn rulerka ama aadan arkaynin, waxaad taabsan doontaa Ctrl R haddaad isticmaalso Windows, haddii kalena Command R si ay kugu soo baxdo rulerkaasi. marka taasna anigu sameeyay si ay noogu fududaato marka selectionka aynu hadda tola sameynano. sidoo kale haddaad arkaysaa halkan khaanadaha selectionka laga sameeyo Photoshop aad bay fara badan yihiin. marka waxa ugu fudud waxa ka loo yaqaano rectangularka. marka rectangularkaas aynu isku dayi doonaa inaynu tutorialkan ka dhigno si ay u fududaato oo ay cid walbaba u samayn karto. waayahay waxaan samayn doonaa marka hadaba khaanadahan intaynu nimaadno ay layers inoo yaalaan ayaynu tegaska soo dhigi doonaa hoosta labada layer ee koobiga. marka labadaas sareba way ka sareeyaan. marka hadhow tola tegaska ayaynu u baahanahay inaynu qayb ka qarno. marka waxaa loo baahan yahay labada layer ee sare koobiga ayaynu ka hooseeya tegasku. markaa saasaan samaynanaa. alright, labada layer haddaba aynu iska qarno si tegaska uu inoogu soo baxo mar labaad. halkaas soo inoo yaalaa. intaana waynu u baahanay inaynu qarino mar walba isha ku hay. intaasaynu u baahanay in rectangularka aynu ka samayno iyo sidoo kale lugtaa kale oo intaa rectangularka kaga samayno. waayahay markaa layerka koobaad ayaynu select garayn doonaa. ka dambeyntan iska dayno ka ugu sarreyntan iska dayno ayaynu kaasoo keliya select garayn doonaa. kaasoo keliya select garayn. marka waxaan dooran doonaa rectangular marquee toolka. marka taa ugu dhufato waxaad isku dayi doontaa oo aad hubin doontaa mar walba in calaamadu ay ku select garaysan tahay labada rectangle ee isku kalarka ah ee kala dambeeya inay kugu taagan tahay. okay, alright, haddaba maxaynu yidhi halka koowaad ayaynu doonayna inaynu ka qaadano calaamadu ama base cabirku aynu qarinaa. intaasay ahayd. marka intaasaynu isku dayi doonaa in rectangularkeena aynu ku samayno. okay, markaynu ku fadhiisino waxaynu tagi doonaa layerka. markaynu tagno waxaynu kasii dooran doonaa layer mask. kadibna waxaynu kasii dooran doonaa refill selection. okay, waxaad laga yaabaa inaad isleedahay waxba ismay bedelin, laakiin si aad ku ogaato changeka waxaad samayn doontaa ka ugu sarreeya ayaad ka qaadi doontaa calaamadda. boom, arti koowaad waynu la baxnay. inta kalena aynu nimaadno. alright, haddaba waxaad dabeedna samayn doontaa marka taata kuugu xigtaa waxa weeye inaad haddana layerkii ugu sarreeyay aad select garaysato. ogsoonow mar walba layerka aad u baahanta inaad wax ka bedesho waanaad select garaysaa. okay, waad select garayn doontaa. waxaad dooran doontaa calaamadii rectangularka. halkeedad baad eegi doontaa inay ku select garaysan tahay labada rectangle ee kala dambeeya. kadibna waxaad dooran doontaa calaamadii rectangularka ahaa. okay, dabeedna waxaad isku dayi doontaa inaad haddana sidoo kale aad hubiso labadii rectangle inay calaamadu kuu saaran tahay ee kala dambeeyey. marka waad soo qaadanaysaa intii aynu u baahnayna kale ayaa haddana select garaynaysaa. markaad select garayso waxaad tegi doontaa qaybta layerka. kadibna waxaan kugu weli waxaad kasii dooran doontaa layer mask. markaad doorato refill selection baad taabsan doontaa. boom, and there you have it. sidii aynu ugu talagalnay ayuu noqday qoraalkii. waxay naga go'ay intii yareed ayaan doonanay inay xagga daba marto rt iyo ed iyo half iyo id ayaa xagga daba martay. markaas sidaas ayaad ku samayn kartaa inaad tegaskaaga backgroundka aad dhigto oo aad objectiga ka dambeysiiso isagoo la moodo inuu xagga dambe ka yaalo objectiga uu ka sokeeyo. so we done. intaasoo keliya ayay ahayd 3 minuteska valuable ee timeka ka mid ah. haddaad wax fara badan ku faa'iiday miyaanan u qalmin inaad like saarto videogan. absolutely waan u qalmaa. videogu inta inoogu ekaado waxaan jeclahay mar labaad inaan ku xasuusiyo inaad videoga dadka hesha like saar. sidoo kale haddaad channelka ku cusubtahay aad subscribe tiraahdo oo nagu soo birta family-geenan filmmakeriska. tan iyo intaan ku kulmi doono videoga soo socda waa Shakuur Bilashiyeeda leh. peace.